wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa xilkii u kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyihii hore. Munaasabadda xil wareejinta oo ka qabsoontay xarunta maamulka ee gobolka Togdheer ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay madax dhaqameedka gobolka Togdheer, maayirada degmooyinka Burco iyo Gabiley, iyo xildhibaan Maxamed Xirsi Obama oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland. waxaanay labada gudoomiye xilka la kala wareegaya kula dardaarmeen inay si cadaalad iyo sinaan la ugu shaqeeyaan bulshada ay xilka u hayaan. waxaan leeyahay reer Togdheer ka tagayna waynu sabooteynaa Ilaahay nabadgeliyo, ka soo socdana waa soo dhaweynaynaa. barataabka cusub waxaanu leenahay soo dhawow Maxamuud Cali Saleebaan ducaanu ku raacinaynaa. laba nin oo magaalada ka dhashay weeye, midna waa soo shaqeeyay oo waa sabooteynaa, midna iminku inoo soo shaqeynayaa. waxaanu leenahay aad iyo aad baanu kaa horena ugu ducaynaynaa, kan dambana aanu ula shaqayn doonaa, ugu kalsoonnahay. Burco iyo Togdheer aan kala hadhin ayaa isugu yimi. taas way u qurux badan tahay xafladda tani. waxa laala wixii la isugu tagaaba saasay u qurux badnaadaan. maanta gobolku mas'uul ka yahay, ilaahay waxaan ka baryaynaa labada weyn ilaahay hawshooda u fudaydiyo. asaga intaasaynu leenahay. warasaabka cusub ee gobolka Togdheerna waxaan leenahay warasaab gobolku waa gobolkaadu, waa meeshaad ku dhalatay, ku soo dhawow. labada barasaab wixii aanu odhanay Gabiley baanu ku soo nidhi. halkan kelmad waxaan ka odhan doonaa reer Togdheer, maadaama anaga nala soo shaqeeyo oo muddo gobol ka soo shaqeeyo Gabiley, waxay markhaati uga tahay guud ahaan gobolku inuu barasaab sharaf karaamo iyo qiimo leeyahay. waxa sharaf weyn yahay inaan maanta ka qayb qaato in isbeddelkan gobolka ku iman doona. waxaan qirayaa in gudoomiyihii hore wax badan oo gobolka ka qabtay, waxaan kaloo qirayaa in gudoomiyaha cusubna insha Allah taala uu wax badan ka qaban doono. gudoomiyaha hore ee gobolka Togdheer haatan laga dhigay gudoomiyaha cusub ee gobolka Gabiley Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay. hawl adag baa ku taala Burco, hawl adag baa taala. waxa laga soo baxay campaign, waxa laga soo baxay xusbiyo, waxa laga soo baxay kala qobqobnaantii oo weli ka jirta gobolka. waxa taala waxa socon waayay sanad iyo barkii u dambeeyay hawlii qaranka ee horumarineed ee gobolka ka socday. anigu ka gudoomiyahan anigu waxaan idin ballan qaadayaa dadweynaha gobolka Togdheer inaanu cadaalad sameeyo. ilaahay baa la hubaa, waxaan hubaa inaan idin cadaalad sameyn doono. qofna aanan xaqiisa ku joogsan doonin, qofna xaq aanu lahayn aanan sii doonin. walaalayaal, waxaan ku faraxsanay inaan maanta imi oo aan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahadnaqayaa inuu mar labaad ii soo igmaday inaan wakiilka dawladda u noqdo gobolkii Togdheer, magaaladeedii Burco ee dugsiga hoose ka galay, ee aan dugsiga sare ka baxay, ee aan ku dhashay, ee aan ku dhaqay, ee aan intaasoo dhan dhex joogay. ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye, waxaanu bulshada ugu baaqay inay ka gudubto xanaftii doorashadu abuurtay, isla markaana ay gacmaha isku qabsadaan horumarka gobolka Togdheer. waxaan idinka codsanayaa dadweynaha reer Burco inay la shaqeeyaan oo ay si wanaagsan ula shaqeeyaan. halkaa ballanku ka qaaday ee uu idin yidhi waxaan idinku shaqaynayaa cadaalad, inaad rumaysataan ma rumaysananay taa. Axmed Saleebaan Carab Axmed Kaafi, Bulsha TV, Burco.